سؤاشينا 369 waxa uu saa'ilkan leeyahay assalaamu calaykum haddii ay fasakh samayso maxkamad laga ictiraafsan yahay maamul kamida maamulada ka jira dalka bimacna dalka Soomaaliya ma noqonaya xukunkeeda mid fula masalada fasakha waxa la yiraahdaa xariga guurka ama nikaaxa oo awood loo isticmaalo oo labadii ruux xoog lagu kala fasakho lagu kala diro xarigiina la gooyo oo la zuuliyo sabab badan bayna ku timaada fasakhu ku yimaada مثلا markii la isguursanayo guurku dhacay ayaa waxa jiray waxaan lagu baraarugin oo khalad ah guurkana diidaya oo ka hor imaanaya sida labada ruux مثلا maxram isiin oo kale naas bay wada nuugeen ismayna ogeen ama ma ahe jahliya qoondara u geysay ama ma ahe waxa soo baxday ceeb labadooda mid kamida uu leeyahay oo qabo oo lagu wada joogi karin ama ma ahe wali la'aan baa la isguursaday ama gadaal baa waxa ka timid labadoodii baa mid ridoobay oo diinta ka baxay ama ninkii baa biilkii iyo masruufkii bixin kari waay asbaab badan buu noocaas oo kala abu fasakhu leeyahay laakiin culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan fasakhu wuxuu u baahan yahay jiho oo awood leh jihada sulta wuxuu u baahan yahay cidda fasakha go'aanka qaadanaysa waa inay tahay jiha awood leh oo fulin karta amarka ay qaadanayso sida xaakimka iyo qaadiga sharciga iyo madaahibta afarta sidaas way maxay yeelay asbaabta fasakha ku yimaado inteeda badan waa ijtihaadiye khilaafka halka ka dhashana xaakimka iyo qaadiga go'aankiisa ayaa xasmin kara oo gooyin kara waa masalada labaad ee arrimaha noocan kale waxay u yahay in la dabdiyo u baahan yahay hadii fawdo laga dhigo nin walba la yiraahdo awood baad u leedahay fasakh arintu gacanta ka baxaysa waana sida hadda jirta waa saas daradeed ciid wax fasakhi karta waa inay tahay ciid awood leh yaani qaadi ama xaakim la ictiraafsan yahay awood leh waa inuu yahay nidaamyadan marka dawladahan ama duwaylaadkan ka jira Soomaaliya yaani waxa weeye nidaam awood leh waay oo xabsi laho ciidamo laho dhul ka taliyo awood laho nufuud laho sulta laho jiha haday jirto marka qadaa u xil saaran ama maxkamada ay jiraan maxkamadahaasi waxay fasakhi karaan haday intay arinta baaraan ka baaraan degaan ijtihaadku uu soo saaro inay xariga gooyaan oo wax fasaqaan fasaqoodu waa mu'tabar in dhinac kale taba laga bushiyo mooyaane laakiin si ahaantooda waa jiha qaadan karta go'aanka fasakha bal culimada qaar kamida waxay leeyihiin wadamada reer galbeedka iyo wadamada muslimiintu ku yar yihiin oo laga tira badan yahay jamciyaadka ka jira iyo maraakista ka jira way matali karaan booskii qaadiga ama xaakimka muslimiinta way u matali karaan وبالتالي awood way u leeyihiin inay arrimahan oo kala ka go'aan gaaraan oo qoysaska isku murugsan inay kala fasaqaan oo go'aan ka qaataan oo kala diraan way awoodi karaan bay leeyihiin culimadu wallahu a'lam jazakallahu khairan